waxaa maanta qaahira ka furmaya koobka kubadda cagta ee qaramada Afrika. Maxamed Xaraare ayaa maalmahanba halkaasi ku sugnaa, imkana khadka toos ugu jira. Xaraare, maxaa ugu dambeeyay xaraarada kor ma u kacday? Cabdiraxmaan Bidhaan, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Habeen wanaagsan daawadayaal, wanigoo Maxamed Cabdi Xaraare oo toos idin kala hadlaya magaalada Qaahira oo ay saacado gudaheed ka furmi doonaan ciyaaraha koobka kubadda cagta ee qaramada Afrika. Haddaba ciyaarahaasi waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo xiriirka qaaraddu uu maalmahan uu ka jiray isku dhaxyaac fara badan. Shalay waxaa shir jaraa'id wada qabtay FIFA iyo CAF oo ah xiriirka kubadda cagta Afrika, waxaana shirkaasi lagu soo bandhigay in howlaha xiriirka gabi ahaanba lagu wareejiyo FIFA. Waxaan arrimahaasi wax ka weydiiyey Suleymaan, ninka la yiraahdo Suleymaan Waaberi oo ah gudoomiyaha ama madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Djibouti. waxa uu igu yiri xiriirka kubadda cagta Djibouti wuxuu kamid yahay FIFA ma barkaya kolka xeerka FIFA xilkiisa oo hogaanaya ku dhaqanaa kubadda cagta waxa dhibaato maartay waxda meesha hadalka la wareegin ma meesha wala shaqeyn la wareego kala duwan gudoomiyaha jira hada executive committee baa jira maxaa congress baa jira kaafka kolka xeer beelada kaafko si loo wareegi karaa. وهاجاج سكستبا هاتee sidoo kale waxaa jirta in ciyaartooyda xulka kubadda cagta ee Cameroon ay diideen in ciyaartan ka soo qayb galaan kadib markii ay sheegeen in aanan xaqooda la siinin, inkastoo markii dambe ay soo duuleen. Si kastaba haatee ciyaarahaasi caawa waa ay furmayaan. ciyaarta ugu horeysana waxa ay dhex mari doonaan xulalka Masar iyo Zimbabwe, waxay dhici doonaan saacado uun kadib. Haddaba waxaa istuudiyaha ila jooga Suleymaan Fure iyo Cabdifataax Dhoore oo labadaba ka faallooda ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo Suleymaan, qabanqaabada ciyaaraha sidee u saameysay magaalada Qaahira? magaalada Qaahira aad baa looga soo dhaweeyay qabanqaabada ciyaaraha guud ahaan magaalada, iyo dadka masaaridii waxay u soo dhaweynayaan habeen iyo maalinba waxay u taagan yihiin soo dhaweynta dadka imanaya iyo ciyaartooyda iyo taageerayaasha. waa dad aad isboorti u ah, waa dad Afrikaanka kale ka horeeya xagga isboortiga haday noqoto, waa dad aad ugu furfuran isboortiga iyo dadka soo dhaweynta dadkana waa dad ku wanaagsan, waana dad aad u tixgeliya isboortiga iyo arrimihiisa. magaalada intaan joogay waxaa ka dareemay in ay ka jirtay zaxmad fara badan iyo gawaarida oo fara badatay. arrintaasi ma hadday timi sideedaba magaaladan sidaas ay weligeed ahayd? magaaladu Maxamed oo markeeda horeba iyadoo saxmadeedu badan tahay haddana aad ayay u sii siyaaday saxmadeedii, maadaama oo 24 wadan iyo taageerayaashoodiiba ay yimaadeen oo soo buux dhaafiyeen magaalada Qaahira. saxmaduna sidaas ayay aad ugu sii badatay markii hore. waa gartay Fur, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Cabdifataax, haddii aan ku weydiiyo aanu dhex galno 24 kooxood buu ka dhawaajiyay Suleymaan inay ka soo qayb galayaan ciyaarahan, ma la sii saadaalin karaa cidka koobkan ku guuleysan doonta? wallahi Maxamed oo horta mar walba kubadda cagta saadaalintu way iska jirtaa oo dadka kubadda way ka sheekeeyaan, laakiin saadaalistu sidii la rabo mar walba uma dhacdo. laakiin waxaa la dhihi karaa kooxa u cadcad ayaa jira inay koobka qaadaan, sida Senegal oo kale, Algeria oo kale, muxuu ahay Masar oo iyaduba muxuu wadankeeda lagu qabanayo oo dhulka iyo taageerada wadata. laakiin aniga ahaan waxay ila tahay xulka sanadkan ugu adag koobka inay tahay Senegal markii la fiiriyo ciyaartooyda ay wadato, sida Sadio Mane oo ah yani xidig Champions League hadda qaaday, oo ah nin Premier League-na wacdara ka dhigay sanadkii la soo dhaafay kooxdiisa Liverpool. waxay wataan difaac kamida difaacida adduunka ugu adag oo Koulibaly wataan, ciyaartooy Idris Gaye oo Everton u dheelo dhexda wataan, waxay wataan Sheikh Kouyaté oo Crystal Palace u dheela. yani squad fiican ayay leeyihiin oo la dhihi karo maanta yani wacdara ayay ka dhigi karaan. waa gartay, laakiin ciyaarahan waxaa lagu qabanayaa dalkan Masar. kooxda Masarna sidaa ogtahay waa koox adag oo Maxamed Saalax baa ku jira. taageerayaashooda aan ku weydiiyay Fure, taageerada ay haystaan iyo awoodooda adigu ma la qabtaa in sida Dhooro kale in Senegal ay koob ka qaadi karto Masar? horta walaalkay Maxamed sida uu sheegay saadaashu waa wax la qiyaasay, qiyaastuna ama run bay noqotaa ama been bay noqotaa, waxa weey si aad la rabtay si aan bay noqon kartaa. anigu kulay lama qabo qiyaastaas. qiyaasaan anigu waxaan qabaa wadankan Masar oo ah wadan sumcad weyn ku leh kubadda Afrika, inuusan maanta oo gurigiisii ay joogto uusan sinaba aysan u yeelanin taageerayaasheeda iyo ciyaaryahanadu inay guriga laakiin koobka ma ku siin karaa? guriga uu ku siin karaa, horeba way ugu qaadeen. waa markii shanaad saan filayo oo lagu qabto wadankan Masar Qaahira. laba mar hore way qaadeen
oo gurigaaga waxaad ku helaysaa taageero badan iyo waxyaabo badan oo aadan ku heli lahayn banaanka markaad jirto iyo dhiirigelin badan baad ku helaysaa intaas ka sikow waddanka Masar waa waddan koox xoogan buu wataa waxa weeye sanadkii horena waxa weeye 2017 waxay yimaadeen finaal sanadkii hore waa kasii rajo fiican yihiin waxay wataan Maxamed Saalax oo ah ninka waxa weeye de maanta championkana soo qaaday gool dhalintan labadii sano u dambeysay gool dhalinta Premier League ku guuleysanayay rag kaloo fiican oo weerarana way wataan sida ninka leeyahay Trezeguet oo kale marka ma nin kaliya koobka u qaadi kara nin kaliya uma qaadayo adigu inta ikaadi aan weydiiyo dhowre ma la qabtaa in Masar oo koobka maadaama ay gurigooda joogaan 5 jeer oo hore loogu qabtan ay ku qaadeen inay ku cashan karaan niyahow Masar markaa fiiriso koox ahaan yani waa wadan markay yani dal waa markay dhulkooda ku dheelayaan yani dad ruux ku dheela waa xamaas ku dheela oo team ahaan u dheela sometimes yani dadku waxay dhaan kooxda dhulkeeda ku dheelaysa waxay saysaa xaafiz ziyaada ah oo ah muxuu ahaa in dhiirigelinaysiisa sometimes laakiin in a negative way ay ku siinaysaa waxaa laga yaabaa maanta taageerayaasha pressure ka ziyaada ciyaartooyda inay saaraan oo muxuu ay xamil waayaan oo qaladad aysan geli lahayn ay galaan teeda kale hadda ninkan wata Khafier Aguirre ee dhan Masar wata waa nin ku cusub oo Hector Cuber oo sanado watay kooxda bedelay Hector Cuber wuxuu ahaa nin system difaac ku dheela oo waqti badan kooxdan wadankan muxuu ahaa tababaro u ahaa systemki waa la bedelay oo system cusub oo hadda muxuu ahaa koox gool dhalinayso weerar qaadaysay noqdeen soo marka systemkan cusub iyo yani koob cusub ee hadda ka qayb galeen iyo transitionkan ay ku jiraan waqtigan uma malaynayo marka in muxuu ahaa Masar ay koobkan qaadi karto laakiin mar walba weesha waxa ku jirta mufaaja'a way dhici kartaa oo lama filan uu dhacay sida Zambia uu qaado kale 2012 fur hadii aan ku weydiiyay degdeg way 24 kooxood timid maxay Soomaalida Djibouti ama Soomaaliya uga soo qayb galaan koobkan iyadoo mad qasqar xitaa ay timid oo su'aal fiican walaal kulay wadankeenu waa wadan dhan walba burburay dhinac walbana burburku ka saameeyay wadamadii waxa weeye Madagascar oo kale iyo Jariira oo jasiiradaha ka soo qayb galayaan Kenya oo deriskeena ahayd baa ka soo qayb galaysa saasay tahay inagu kama soo qayb galin marka waxa weeye waxa la oran karaa sida burburka dalka oo dhan u saameeyo dhinac walba u saameeyo dhinaca dhaqanka u saameeyo dhinaca oranaysaay oo ciyaaraha akhlaaqiyadka u saameeyo ayuu dhinaca ciyaarahana u saameeyay saas daraadeed ayaa burburka daraadeed bay uga soo qayb galaan inkastoo Cabdifataax ay inta badan ciyaaraha Afrika dalka lagu qabtay ay qaadaan haddana mar waxaa jirta ay mucjiso timaado Leicester ba hadda ka hor waxay qaaday Premier League oo aan la filayn sidii Greek oo kale 2004 ku qaadi karaan koobkan wallahi niyahu hadda fiirisid kooxaha yaryar oo ka soo qayb galay markii ugu horeysay sida Kenya oo kale Madagascar oo kale wadamo badan oo waxaa jira hadda si Tanzania oo kale yimid wadamo aanan filaynin inay wax sameynayaan ani ismalihi sanadkan inuu mufaaja'a dhacayso horta kooxaha Shimal Afriqiya ee dhan sida Tunis iyo Jazaa'ir oo kale iyo Masar oo kale dadkan Shimal Afriqiya ee dhan Morocco horta kooxda Morocco la yiraahdo dadku inta badan ma fiirinayaan laakiin Morocco waxa wata coach laba mar soo qaaday koobka waa maasanta Cabdifataax waqtiga ayaa naga soo dhamaaday waanu arki doonaa haddaba sida ay ku dhamaadaan ciyaarahaas Cabdifataax bidhan aan kugu soo celiyo